qoyskani muslimka ah dhawaatan qaatay diinta islaamka ayaa salaadii jimcaha kadib deeqyabaha loogu sameeyay masjidka Imaam Shaafici ee ku yaala xaafadda Mayfair magaalada Johannesburg dalkani Koonfur Afrika. Dhammaan dadkii muslimiinta ah ee ku soo dukaday masjidka ayaa sida aad waxay ugu farxeen in reerkani dib-u-dejin loo sameeyo maadaama ay reerahooda ka soo guureen ay u soo guureen meelaha ay ku badan yihiin walaalaha islaamka. Qoyskani oo ka kooban 7 ruux ayaa sheegay inay si aad ugu faraxsan yihiin inay ku soo biiraan diinta islaamka ayna qaataan iyadoo arinkani ay ku dayasho weyn u tahay bulshada Koonfur Afrikaanka inay qaataan diinta islaamka. Haddaba waxa warbaahinta la wada hadlay aabaha qoyskani iyo imaamka masjidka Imaam Shaafici qaar kamid ah Soomaalidii gacanta ka geysatay dib-u-dejinta qoyskani. waxaan aad ugu faraxsanahay familiga maanta ku soo biiray diinta islaamka. waa farxad weyn waana soo dhaweynaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ka badbaadiyay cadaabkiisa. الحمد لله الذي أنقذهم من النار. النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إلهي سبحانه وتعالى نكسوها مني هالقف قعنت هذا وسبب إلهي وكاغا دغو يا وحي خير بدنتahay geelkiisa gudgududan oo cascas oo ahaa waqtigaas iyada waxa ugu wanaagsan ay haysteen carab maal iyo adduunyo hadda la haysto ugu wanaagsan kuwa ugu sareeya waxa ka wanaagsan oo ka khayr badan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala hal shakhsi uu sabab kaaga dhigo. Walaal Abdullahi waxa diinta islaamka walaal igu waa yaa maalmaha kamid waxa la dhaxmartay shaqada sanadoo maarta ku jirna ayaa waxaan u bandhigay diintaana inay tahay diin wanaagsan oo maartay tacaawun oo raxma ay tahay. marka alxamdulillah wax buu iga yeelay maarta wuxuu yiri waxaan ahay oo family waana maartay waanu soo jeedinayaa wixii ay galabto maartay kala soo kulado waan kula imaanayaa insha Allah taala muddo sugayay muddo kadib ugu yimid shaqalaati Abdullahi wuxuu keenay inuu reerkii maartay diinta islaamka diyaar u yihiin sidii baan maartay anagoo maartay la kaashanayna walaalaha islaamka ayaan diintii maartay ku soo gaarsiinay. waxaan soo wacnay kadib walaalaha dacwada albayaan iyo maartay qolada markiska soo wacnay. Being a Muslim it's great for me because I feel good for being Muslim. To pray to Allah on the right way, it's good. And I want to tell most of the Christians to bow in front of Allah because Allah is the only God. And you must bow in front of Allah. You cannot stand and pray not bowing. Taqani Ahmed Abdidon, Kalson TV, Koonfur Afrika.